maalin maalmaha kamida ayaa waxaan imid magaaladii markaan imid waxaan arkay qabri markay tahay galab walba qabrigaasi waa kala dilaacaya waxaa ka soo baxaya qof madaxiisu uu yahay madaxa dameeraha oo kale jirkiisa inta kalena qof binu aadam oo kale uu yahay 3 jeer ayuu sida dameeraha u ciyayaa kadibna wuxuu ku laabanayaa qabrigiisii waxaan weydiiyay buu gabar meesha fadhiday waxay igu tiri qofka daada hooyada halka fadhida ma u jeedaa iyada warayso iyada wiilka dhashay waxaan u tagay buu hooyadii waxaan iri hooyo see wuxuu jiraa muxuu ahaa qofkaani waxay tiri innahu waladii wa wiilkaygii waxay tiri maalintii uu seexan jiray maalintii oo dhan galabtii markay tahay buu labisan jiray wuxuu aadi jiray khamradu aad u cabbi jiray inuu soo iibsado ayuu u bixi jiray waxaan oran jiray yaa waladii ilaa mataa tashrabu alkhamr wiilkaygiiyow ilaa goorma ayaad wadi doontaa cabitaanka khamrada wuxuu hooyadii ugu jawaabi jiray anti tanhaqiina kama yanhaqu alximaar adigu waxaad u qaylisaa sida dameeruhu ay u qayliyaan maalin baa wuxuu geeriyooday xilli galaba wuxuuna qabriga la geliyay allah wuxuu qadaray subxaanahu wa ta'ala galab kasta inuu soo baxo isagoo madaxiisu madax dameer u weeg yahay jirkiisa kalena qof binu aadam u weeg yahay 3 jeer sida dameeraha uu qayliyo kadibna uu ku laabto qabrigiisii ahibati fil islam عقوبة والدك والاركا وين سود دقدقتا هبارك هوية وسود دقدقا او مداهو سيد الرسول كبير صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم حديث الشيخ الألباني في الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد هي صحيح الترغيب والترهيب يا غير كبا وكصحيحية مجرى الذنب قفك بن آدم كاسدا لوغو سو ددجي عقوبدي سادونك لمد وحل يراهدو قرابه غويسكا iyo oo lagu noqdo caaq lagu noqdo qisada walaalayaal qofka caaqa waxaan ku sameeynaynaa barbardhig inaan ku sameeyno bal dad baariina inaan aragno waxa jiray ninka